وقاميها أنا قوسي كيس دولة فضل كاهي صوماليا جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبة وقولوا خطبة كجيزية عاصمتكم الجار كاهي إمام جبلان مقالة كسمايو أيها وعسكر أول رين مدحوين حسن شيخ محمود إمام الكيس أحمد مدوبة وكقرب قال يشر اسبدل كعملة يديها كوسافصل أو كسمايو ما أنت كفرمي أيها وعوشاق إن حسن شيخ يرزول داري حمزة عبد البراء يمسؤوليتك الدولة دبا أي فرتان حزبي أو أكيك عنك dalkana uu ku jiro xaalad halis ah oo u baahan badbaado iyo samata bixin Axmed Madoobe waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay jibisay dastuurkii sidoo kalena waxa uu sheegay in laashay dhammaan wax kasta oo dawladnimada Soomaaliya ku dhisneed sidaas darteedna madaxweynuhu wuxuu siibtay dhismaha xisbi la mid ah keeka caanka oo uu rabo inuu dalka ku maamulo taas oo uu sheegay in keeni karto xaalad hadda lagu jiro mid ka adag warka wuxuu ka sheegay Kismaayo wuxuu ku soo beegmaya iyadoo dhawaan shirkii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho ku soo gabagaboobay oo yeesheen hal xisbi siyaasadeed oo hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud go'aanadii ka soo baxay ee qayb ka ahayd in wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ay keento talo iyo sidoo kale siyaasad ku saabsan xaaladda maamulka Jubbaland oo tan iyo dhowrkii bilood ee la soo dhaafay khilaaf oo kala dhaxeeyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kaasi oo gaaray meel adag wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa looga fadhiyaa waxa uu ka soo tala bixin doono iyo sida uu soo tala bixin doono intuba oo ku saabsan xaaladda Jubbaland dawladda federaalkana waxay maalintii shalay ahayd ku dhawaaqday in dib loo furay garoonka diyaaradaha ee Doolo oo aad muhiim ugu ahaa nolosha dadka ku nool gobolka Gado iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay iskhilaafeen markii uu maamulkaasi ku dhawaaqay inuu qabsanayo doorasho dhamaadka sanadkii hore kadib markii uu ka baxay shir ka socday magaalada Muqdisho tan iyo wixii markaas ka dambeeyay waxa aad u xumaaday xiriirka Muqdisho iyo Kismaayo iyadoo ay xaaladdu gaartay ilaa ay dhinacyadu ay dagaalamaan dhimasho dhaawac badan oo ka dhasho meel ay ciidamada Jubbaland iyo kuwa dawladda federaalka isaga hor yimaadeen dawladda dhexe waxay ku guuldareysay dhammaan tallaabooyinkii military oo ay qaaday sidoo kale waxay ku guuldareysay dhammaan tallaabooyinkii siyaasadeed oo ay qaaday Jubbaland oo hadda dhisan laakiin dawladda federaalka Soomaaliya kama haysato aqoonsi hoggaankeeda ku saabsan si gaar ah doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday Kismaayo oo lagu doortay Axmed Madoobe sidoo kalena lagu doortay baarlamaan ama lagu soo xulay taasoo sidoo kale keentay in ay dawladda federaalka aad u diido lama oga halkay ku dambeyn doonto xaaladda maamulka Jubbaland iyo tan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana dad badan ay sugayaan go'aanka dawladda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo sida ku soo tala bixiso wararka qaar waxay tilmaamayaan inay u egtahay in dawladdu ay ku qasbanaan doonto in Jubbaland la hadasho la fariisato kadibna ay siiso aqoonsi intii uu doonaba ha ahaado ama in dawladdu qorsheynayso inay dhisto maamul goboleed kale oo isla Jubbaland ah oo dawladdu ictiraaf ama aqoonsi ka haysto kaasoo abaabulkiisa si weyn looga dareemayo deegaano kamid ah gobolka Gado warar kalena waxay tilmaamayaan inay dhici karto in go'aano kale oo military ay dhacaan kuwaas aan la ogeyn cawaaqibka ka dhalan doono iyo sida dawladdu ugu suurtagali doonto inay qaado tallaabooyin military iyadoo la ogsoon yahay wixii ka dhacay Raskaboni oo gobolka Jubbada Hoose ah wixii warar ku soo kordha waxay kugu soo gudbin doonaa wararkeena barnaamijyada dambe haddii Allah uu dulleeyo adina aragtidaada qaybta safaalada noo hore muuqaalkana si sheer garay haddii aad nagu cusubtaan nagu